iyadoo oo dhammaan laga wada tukaday wadamada islaamka munaasabada Ciid al-Fitriga oo soo afmeertay 29 bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayaa maanta shacabka ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ay si weyn iskugu soo baxeen munaasabadaasi kuwaasi oo ku tukaday garoonka weyn ee Bursade waxaana munaasabadaasi kala qayb galay shacabka reer Berbera mas'uuliyiinta gobolka Saaxil oo ugu horeeyo warasaabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin marayaha dekedda Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay kana duceeyay culimada kala duwan kuwaasi oo u duceeyay shacabka magaalada Berbera iyo ummadda islaamka meel kasta oo ay joogaan Ilaahayna uga baryay inuu Ramadaantii ay soo soomeen ka aqbalo dadka reer guuraaga ahna abaaraha ka jabiyo waxaana kamid ahaa hadaladoodii sida mid waxa weeye dadka inala deriska ay ku jira jeelka Ilaahay xiskoodii ka qaaday inaynu maanta siino wax u tara oo qolada kale ay masaakiintaana 12 bilood oo maalin dhiman ayaa soo urursanaysa billaah calaykum maanta ka fadhiista marka rag iyo dumarba walaalayaal ha loo dadaalo wax fiican ha la siiyo wama ya'mal min salihaatin min dakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaa'ika yadkhuluna al-janna wala yadlamun ilaahay wuxuu leeyahay kuwa idinka mid idinkay wax wanaagsan bixiya wax la baxay mantalka ama cusbitaalkan inagu xiga walaalayaal ha laga warayo masaakiinta kalena wixii la siin karaya ha la siiyo laakiin maanta oo kale priority-ga waxaynu siin jiray dadka xanuunsanaya aynu deriskana inaguna aynu ku ag ciidayno iyaguna aanan la ciidaynin iyagoo in kastoo la ciidsiiyay oo wixii insha Allah ta'ala maryaha iyo wixii hawlaha geesta kale mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ayaa shacabka reer Berbera ugu duceeyay inuu ka aqbalo Ramadaantaasi ay soo soomeen dadka xanuunsanayana caafimaadiyo waxaana kamid ahaa hadaladoodii sidan ilaahay ciid mubaarak ilaahay subhanahu wa ta'ala bisheeda Allah inuu gaarsiiyo caafimaad cimri dheer inta bogtana Allah caafiyo inuu caafiyo noocu doono xanuunkaas Allah caafimaad zaayid siiyo intii dhimatayna Allah u naxariisto waxaan halkan ka salaamayaa oo kale dhammaan islaamka meel kasta joogaan inta maanta ciidda qof kasta oo islaama waxa la rabaa inuu mar walba ku xamdinago Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcada uu siiyay nimcada Ilaahayna siiyo waxa ugu qiimaha badan waa caafimaadka weyn waxaanu dhaxtaaganahay saddex dhakhtar waagii baryaba waa lagu soo biiraa ama kanaaca ha soo cunto ama gaadhi ha la dhaco ama Ilaahay xiskiisa ha ka qaado waxa cibrayn loogu filan inay mar walba ku cibro qaadano oo nimcada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala magaalada Berbera oo xarunta gobolka Saaxil oo iminka ku jirta xilligii kulaylka ayaa haddana saaka suuqyada waaweyn ee magaalada Berbera camiraayeen kuwaasi oo dadku aad isula dhex salaada Ciid al-Fitriga wa Cabdiraxmaan Maxamed Cige TV-ga caalamiga ee Royal magaalada Berbera.